bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan qodobada wararka risaaladeen heesa dhegeystayaal saaka waxa ugu waaweyn madaxweyne axmed madoobe oo kulamo xal loogu raadinaya xayiraada saaran jubbaland la qaatay siyaasiyiin shala gaaray kismaayo puntland oo baadigoobaysa doon kaluumeysi iyo shaqaalihii saarnaa oo lagu waayay xeebaha puntland heesa salka ku heesa muran dhinaca dhulka oo ka taagan degmada kaxda ee gobolka banaadir soomaaliya oo switzerland uga qaybgalaysa shir caalami ah oo looga hadlaya qaxootiga madaxweyne trump oo ku wajahan magaalada Minneapolis oo Soomaalida ay ku badan yihiin iyo qaramada midoobay oo ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo dadka micna darada loogu leenayo wadanka Ciraaq. marka la dhageystayaal subax wanaagsan intaad maqasheen qodobada risaalo ugu waaweyn ay ahaayeen markan u diyaar garooba warkii oo intaas ka faahfaahsan waa axad taariikhdu waxay ku beegan tahay 6da bisha 10aad Oktoobar sanadka 2019 maxamed cabdi cali ayaa soo saaray warka subaxnimo ayna ku bilownay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa kulamo xal loogu raadinayay xayiraada saaran Jubbaland waxa uu la qaatay siyaasiyiin shalay gaaray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose Cabduqaadir Jakarta ayaa warkan inoo faafaynaya أحمد محمد إسلام أحمد مدوي مدحوينها دولة قبلات جبلان أيها وحو حالي أما ساعدي لصودا في كل مكان الدول لقاتي وفتي شل جلك الدنبه جاري هالكاس أو مركز إيه كلا هايين مدحويني هراء إمام الكجل مدوق عبد الكريم حسين جوليد مدحويني هراء إمام الكوفر قلبي شريف حسن الشيخ قادن xubnahan ayaa xalay madaxtooyada magaalada Kismaayo waxa kula qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe waxaana kulanka intiisa badan looga hadlayay xayiraadii dhawaan ee saartay dowladda federaalka Soomaaliya oo ku saabsanaa dhanka socdaalka ah waxaana xayiraadaasi ahayd in diyaaradda ka soo duusha qaybo kamid ah dalalka caalamka ee ku wajahan magaalada Kismaayo ee soo marto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya taas oo hakisay siyaasiyiin fara badan oo doonayay inay ka qayb galaan xafladda caleema saarka madaxweynaha maamulka Jubbaland oo la filay inay dhacdo 9 bishan oo ku aadan 4 toddobaadkan waxaana Axmed Madoobe iyo waliba madaxweynayaashii hore ee galmudug iyo koonfur galbeed ay ka wada hadleen si xal loo gaari lahaa khilaaf ku dhaxeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland taas oo sababtay in xayiraad la saaro garoonka magaalada Kismaayo walow mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ay shaaca ka qaadeen in duulimaadkii dhanka rayidka la qaaday hayeeshee warar hoose oo soo baxay ay sheegayaan in jiraan culays waliba iyo xayiraad dhinaca socdaalka ee la saaray diyaaradaha doonaya inay ka qaadaan siyaasiyiinta magaalada caasimada ee Muqdisho iyadoona haatan taas ay sababtay in siyaasiyiin fara badan oo doonayay inay tagaan magaalada Kismaayo aysan wali tagin kuwaas oo ku sugan magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale hore u jirtay in markaasi socdaal uu ku doonayay in magaalada Kismaayo uu ka tago laga joojiyay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka dowladda kumeel gaarkeed ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed taas oo xaalad siyaasadeed dalka ka abuurtay waxaana Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo sidoo kale Shariif Xasan Sheekh Aadan shalay markii ay tageen magaalada Kismaayo ee sheegay inay jibiyeen markii ka soo baxay dowladda Soomaaliya sidii hadalka u dhigeen waxaana kulamadii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Kismaayo lagu gurfeeyay si xal loo gaari lahaa xayiraada ay Kismaayo saartay dowladda federaalka Soomaaliya ee dhanka duulimaadka iyo guud ahaan khilaafka ka dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya madaxdeeda iyo maamulka Jubbaland waxaana goor sii horeysay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe uu sheegay inuu diyaar u yahay in uu wada hadal la furo cid kasta oo ka soo horjeeda siyaasaddiisa isla markaana dhaliisan qaabka uu wax wado isla markaana uu shaqeeyo maamulka Jubbaland markan Puntland ayaa baadigoobaysa doon kaluumeysi iyo shaqaalihii saarnaa oo lagu waayay xeebaha Puntland Axmed Tifo Xasan ayaa warkan inoo faafahinaya dooni ay saarnaayeen ku dhawaad 8 ruux oo 5 kamid ah ay Soomaali yihiin labana ay yihiin kuwa u dhashay wadankaasi Kenya halna uu yahay nin ka soo jeeda wadamada Carabta oo aan la shaacin wadanka uu ka soo jeedo ayaa maamul goboleedka Puntland waxaa baadi goobaysa dooni ay saarnaayeen oo ku degtay xeebaha maamulka Puntland macada sababta ay u degtay doonida iyo cilada ku timid sida ay sheegayaan saraakiisha maamulka Puntland ayaa shaaciyay tan iyo 3 bishiina dhaaftay ee September in ay baadi goob ugu jiraan helida doontaasi sida uu sheegay wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda maamulka Puntland Faarax Maxamuud Cawaash oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso waxa uu sheegay wasiirku
in doonta ay ka tagtay xeebaha magaalada boosaaso sidoo kalena ay kusii jeeday dekada mukalla ee dalkaasi yemen iyadoo la rumaysan yahay doontu in ay ku maqan tahay inta u dhexaysa waa xeebaha magaalada boosaaso iyo sidoo kale xeebaha dalkaasi yemen. wasiirka kalluumeysiga ee kharaadka badda maamulka puntland faarax maxamuud cawaash ayaa sheegay in xidhiiro kala duwan ay la sameeyeen ciidanka badda ee midowda yurub waa ciidanka midowda yurub ee ku sugan xeebaha soomaaliya si ay uga helaan ama ay ugu fududaato helidda dadkaasi saarnaa doonta ka tagtay magaalada boosaaso. ha yeeshee ilaa hadda aysan u sheegin in ay haynin wax akhbaara oo la xiriirta dadkaasi doonta saarnaa. doon uu leeyahay nin muwaadin ganacsado reer boosaaso ah doontaas oo 30 bisha xilli galabnimo ah ka baxday magaalada Bareeda iyadoo wada kalluun 15 tan ah una socotay Mukalla in la laayahay muddo hadda 5 casho ah waxaa saarnaa 8 baxri 5 Soomaali ah 2 Kenyaana iyo nin Caraba 2 laash baan u dirnay wali ma hayno ma garan karno wax ku dhacay inay motorka ka xumaaday oo ay sabaynayso inay luntay inay wax kale heleen waan ku maqannahay waa raadin doonaa insha Allah waxaana ilaah uga rajaynaynaa inuu soo badbaadiyo u fuudeeyo oo noo fuudeeyo in la helo sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ka sheego laashkii ka baxay xeebta Binna in isna wali la laayahay shantii baxriyo saarnaa ilaa Cumaan waa la xiriirnay ciidamada neefiga midowga Yurub ee jooga badda waa la xiriirnay waa noo soo jawaabeen email oo iyagana wali wax ma hayaan. maamulka puntland ayaa ugu baaqay ehelada dadkan ay kasoo jeedaan inay isdejiyaan. dowlad goboleedka puntlandna ay ku guda jirto helidda dadkani ilaa ay hadda lama shaacinin xaaladda ay ku sugan yihiin dadkan kalluumaysatada Soomaalidu ay u badan yihiin. xiisad salka ku haysa muran dhinaca dhulka ayaa ka taagan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Maxamed Cabdi Cali ayaa warkan inoo dhameystiraya. israsaasiin u dhaxaysay ciidan ka tirsan dowladda Soomaaliya balse waa abaabulnaa qaab qabaaileed ayaa shalay gelinkii dambe waxa ay ka dhacday degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxaana israsaasiintan sida dadka deegaanka ay noo sheegeen ay timid markii dhinac ka mid ah dhinacyada israsaasiyay uu isku dayay in uu joojiyo dhismo guri oo ka socday degmadaasi waxaana dhinaca kale ee dhismaha laga joojiyay uu dalbaday ciidan ka tirsan dowladda Soomaaliya halkaasina waxaa ka bilowday isku dhac labada dhinac ah. rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayeen ayaa gaartay meelo ka fog iyada oo dad rayid ah oo aan goobta ku sugnayn ay guryahooda ugu tagtay waxaana la sheegay in 2 dumar ah ay ku dhaawacmeen. dhinacyada dagaalama ayaa la sheegay in mid ka mid ah askarta uu ku geeriyooday iyada oo meedkiisa loo soo qaaday xarunta dambi baarista ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee CID. maleeshiyada ku dagaalantay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa inta badan waxa ay dagaalo ku dhexmaraan degmadaasi iyadoo ay soo jiitamaysa xaaladooda waxaana dhowr jeer isku dayay inay ku baxaan maamulka gobolka Banaadir saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska iyo xoogga dalka Soomaaliyeed laakiin markasta xal ku meel gaar ah ayaa la gaarayay iyadoo kadibna ay dhinac ka furanaysay. wararka saaka laga helayo degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in xiisada ka dhalatay xaaladaasi ay weli ka taagan tahay degmada iyadoo shacabka ay muujinayaan feejignaan waxaana gaabis ah xarumaha ganacsiga waxaana gaabis ah dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyadoo sidoo kale xarumo ganacsi ay yihiin kuwa kooban kuwa degmada saaka shaqeynaya. dadka deegaanka ayaa ku sheegaya inuu xadidan yahay isu socodka degmada maadaama ay suuragal tahay in xaaladda oo aan xal rasmi ah laga gaarin mar kale ay soo laba kaclayso isla markaana ay dhibaato u geysato shacabka ku nool degmadaasi. ma jirto ilaa hadda mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan heer gobol iyo heer dowladda dhexe oo arrintan ku baxay. shacabka ayaa sheegaya in degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ay bilihii u dambeeyay foolanaysay isku dhaca ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo u kala safan 2 qabaa'il oo la sheegay inay ku muransan yihiin dhul ku yaala degmadaasi. dhinacyada ayaa horey waxgarad ka soo kala jeeda waxa ay ku gaareen degmada xal ku meel gaar iyadoo mar kale ay arrintan soo cusboonaatay kadib markii dhismo lagu bilaabay qayb ka mid ah dhulka muranka uu ka taagan yahay.
wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada Geneva ee dalka Switzerland iyadoo si weyn halkaas loogu soo dhaweeyay ujeedka wafdiga ay u tageen dalka Switzerland ayaa waxaa lagu sheegay inay halkaas uga qayb galayaan shirka heerka caalami ah ee guddiga sare ee fulinta hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga adduunka kulankan oo ah kii 7aad ayaa waxaa isugu imaan doona dalalka xubnaha ka ah guddiga sare ee fulinta hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga adduunka iyadoona wasiirka uu ku matali doono dowladda Soomaaliya kulanka ayaa lagu qaadaa dhigi doonaa arrimaha qaxootiga adduunka sidoo kalena waxaa lagu ansixin doonaa qorshe sanadeedka iyo miisaaniyadda hay'adda UNHCR wasiirka arrimaha dibadda federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Switzerland wuxuu kulamo kala duwan la qaadan doonaa madax ka tirsan dowladda Switzerland iyo mas'uuliyiinta kale ee shirkaas ka qayb galaysa markana ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa howlgallo waxa ay ka wadaan saaka deegaano ka tirsan gobolka Mudug Cali Xasan Cali ayaa warkan inoo dhameystiraya wararka laga helayo tuulooyin hoostaga deegaanka Camaara ee gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in halkaasi saaka ilaa xalay ee howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka wadaan ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed shalay gelinkii dambe ayaa waxaa deegaanka Camaara gaaray ciidamo u horkacayay taliyaha qaybta 12aad ee xoogga dalka General Qooje iyagoo howlgallo qorsheysan ka fuliyay gudaha deegaanka Camaara hayeeshee wararka aan saaka ka helin ayaa waxay sheegayaan in ciidamadu ay saaka howlgallo ka wadaan daafaha deegaanka taliyaha qaybta 12aad ee xoogga dalka General Qooje oo la hadlayay shacabka deegaanka Camaara ee gobolka Mudug ayaa waxa uu ka dalbaday in ciidamada ay kala shaqeeyaan sugidda amniga haddii arrintaasi hergasho kadibna ee ciidamadu horey u sii socon doonaan qorshuhuna yahay in la gaaro dhammaanba deegaanada kale ee aan xortayn deegaano ka tirsan gobolka Mudug iyo Galgaduud ayaa waxa ay gacanta ugu jiraan xubno ka tirsan Al-Shabaab waxaana saraakiisha ciidamada dowladda ee deegaanada Galmudug ay sheegeen in dhawaan ay ka saari doonaan goobahaas ay ku sugan yihiin Al-Shabaab ugu dambeyn dhageystayaal qaramada midoobay ayaa waxa ay ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo dadka micno darada loogu leenayo dalka Ciraaq qaramada midoobay ayaa waxa ay ku baaqday in la soo afjaro dadka micno darada loogu leenayo Ciraaq xilli ay sare u kacday tirada dadka ku dhintay dibadbaxyada dowladda looga soo horjeedo oo haatan ku dhow 100 qof dibadbaxayaasha ayaa sheegay in ay go'aan ka qaateen oo ay ka soo horjeedaan shaqo la'aanta adeegyada bulshada ee aadka u xun iyo musuqmaasuqa dalkaasi la degay sida ay sheegeen dhinaca kale qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in xaaladda ay tahay mid aad u xun loona baahan yahay in maalmaha soo socdo wax laga qabto waxa ay sheegtay in mas'uuliyadda ay dusha ka saari doonaan dowladda maadaama ay dowladda dadkan aad uga soo horjeedaan xalkana loo baahan yahay in ayada ay keento sabtidii ciidamada ammaanka waxa ay kala eriyeen dad badan oo isugu soo ururay wadooyinka bariga ee magaalada Baghdad 5 qof ayaana la sheegay inay ku geeriyoodeen rabshadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada caasimadda ee Baghdad waxaana mar kale lagu soo waramayaa in ciidamada rasaas nool iyo gaaska dadka ka ilmeysiiya ay ku kala eriyaan dibadbaxayaasha iskugu imaanaya wadooyinka waaweyn ee ku yaala caasimadda Baghdad ee Ciraaq waxaana la sheegayaa tirada dhimashada hadda in ay mareyso ilaa 100 qof guud ahaan dhageystayaal warkiisa waxna masaaka waa naga inta cid u seega dib waxuu ka gali karaa website-kan internet ku leenahay ciwaankeenu yahay radio risala.com